بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد ولا ليال وحان جعل أنا كسلام صلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحان إذين هيا حدي الله أود الهدمه برنامج عصب وأنصلي حقيقي آد أيو أنفع يا قف والبو ومركز دهيست برنامج كم حكوا سابسين هاي أريمها waxbarashada waa barnaamij cusub oo uu talgalay sanadka 2018 in aan dadka uga faa'iideeyo waa barnaamij in muddo aan ku taameeyay inaan bilaabo waa barnaamij cilmi baaris badan aan ka sameeyo waa barnaamij dhahayo dadka hadda soo gudbisid wax badan ayay ka faa'iidi doonaan haddii Allah awood leeyahay waxaad ogtihiin sanadkii aan soo dhaafnay 2017 ahaa waxaan soo bilaabnay barnaamijkii cuntada caafimaadka ee nutritionka alxamdulillah ilaahay wuu nagu guuleysiyay waxaan sameynay cajalado ilaa 60 video ayaan sameeyay insha Allah sanadkii hadda soo dhaafay 2017 dad badan ayay sameeyeen cajaladahaas oo caafimaadkooda wax badan oo xagga wanaaga iskaga bedelay dad badan ay cajaladahaas iskaga bareen oo ilaa hadda asla xiriirnaa baahi badan ay cajaladahaas daboodeen waxayna ka sugnaatay intaas maxad ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqiisa ahayd iyo energy iyo mataqaana tamar ilaahay subxaanahu wa ta'ala ifuuday inaan sameeyo waxaan leeyahay waxa jira barnaamij kale oo dadka Soomaaliyeed xaqiiqi aad isaguna ay u baahan yihiin oo kan aan laga reebi karin loona baahan yahay in la iswaafajiyo barnaamijkan waa barnaamijka waxbarashada kii hore wuxuu ahaa barnaamij cuntada iyo caafimaadka nutritionka ku saabsan cuntada iyo nafaqada sida isku xiran yihiin kan laakiin waa barnaamij waxbarashada ah oo uu talgalay inaan sameeyo educational videos barnaamijkan magaciisa waxa la yiraahdaa aqoon maal barnaamijkan magaciisa aqoon maal cajiladan oo cajiladii koobaad waxaana insha Allah aan rabaa inaan ku soo gudbiyo sababta cajiladahan ama barnaamijkan cusub oo programka cusub iyo kaliftay inaan la wadaago insha Allah ta'ala marka waa program cusub magaciisa waxa la yiraahdaa aqoon maal waxaan ugu talagalay sanadkan 2018 hadii Allah awood leeyahay in dadku ay wax badan ay kala socdaan barnaamijkan waxaan soo deyn doonaa usbuuca maalinta Monday oo kale ama Isniinta kana wuxuu bixi doonaa yani maalinta Jimcada oo kale marka kan mawduuc fara badan oo dadku u baahan yihiin oo arrimaha bulshada ah oo xagga aqoonta iyo waxbarashada ah يعني أنا dadka ku dhiiri gelino oo aan taqaanaa oo sheegno ahmiyada waxbarashada ay leedahay ayaan ku soo bandhigi doonaa marka insha Allah ta'ala cajaladahan educational videos ka ah aan ugu talagalay ujeedada aan rabo inaan insha Allah ka gaaro sanadkan oo ujeedooyinka soo socda ama sababaha aan ugu talagalay waa sababaha soo socdo aan sidaha sanadka markuu dhamaado insha Allah ta'ala ka salgaar qofka markuu wax barto ama aqoon u yeesho aqoontu sida waxa lagu tilmaamaa in ay noloshu ay tahay noloshuna waa aqoontuna waa nolosha marka qofkan aqoon iyo waxbarasho iyo cilmi iyo yani xirfad aan haysan qofkaas way adag tahay in uu nolol fiican oo wanaagsan oo isaga faa'iido u leh anfac u leh oo ku noolaado marka sababta ugu koowaad ee ugu kaliftay waxa waaye in dadkeenu noloshooda ay fiicnaadaan maanta meesha aad joogtid oo bari inaad ka fiicnaatid ayaa loo baahan yahay sababtoo ah nolosha laguma talgelin hal meel inaad weligaa joogtid ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka dhan isku fursad ayuu siiyay isku meel ayay ka bilaabeen dad waxaa arkaysaa dhulka joogay oo maanta taajiriin ilaahay wax siiyay iskama siinin ilaahay waxba laakiin dadaal iyo aqoon iyo karti badan ayay ku dareen marka waxaa loo baahan yahay dadaalkaas in aan la nimaano markii cajaladahan waxbarashada aqoonta leh marka aan soo bandhigo waxaan kuu sheegi doonaa استراتيجيات kala duwan qaab kala duwan techniques kala duwan oo qofka waxa waa nafsadiisa u dhiirigelin karo soo uu noqdo qof aqoon leh oo wax bartay marka waxaan dhahnay aqoontu waa noloshuna waa aqoon tan labaad waxa waaye waxa lagu tilmaamaa waxbarashada aqoontu in ay yihiin nuur in qofkaas uu iftiin haysto yani Soomaalidu waxay tiraahdaa aqoon la'aan waa iftiin la'aan marka iftiinka aad haysatid waa iftiin aad ku maraysid meesha aragtid inaad markaas martid yani waxa waaye qofka aad rabtid inaad tagtid meesha aragtid inaad tagtid waxyaalo badan oo ku qabsan kartid noloshaada aad isdhehayso ku qabsan kartaa ama ka dhimad aad ku qabsan kartid marka waxaad arkaysaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa inuu ku leeyahay hal yastawi alladheena ya'lamuuna wal ladheena la ya'lamuun isku mid miyaa dadka wax yaqaana dadkaas waa dadka aqoonta lahaa waa dadkii ma garanaysaa iftiinka haystay dadka aan aqoonta haysan yani waxa waaye aan iftiinka
isku mid maaha ilaahay subxaana watacaala marka aayado fara badan oo qur-aanka ku jira axaadiista rasuulka sala allahu alay wasalam kulli waxay sheegayaan qofka markuu aqoon leeyahay qof iftiin leh oo nuur haysta inuu yahay adduunka iyo aakhirana ku badbaadayo marka waxaan dhahnay aqoontu waa iftiin iftiin la-aan waa aqoon la-aan waa iftiin la-aan waaye markaad aqoon yeelatid waxa waaye waxaad noqonaysaa qof dadku ay xushmeeyaan waxaad noqonaysaa qof dadku ay xushmeeyaan oo yacni mar walba waxa waaye dadka agtiisa qiimo ka leh dadka agtiisa value ka leh dadku ay u istaagayaan dadku ay xushmeynayaan dadku waxa weeye ay u yeeranayaan markay wax u baahan yihiin yacni meelaha la iskugu yimaaday xafladaha iyo ma garanaysaa xafladaha la dhigaayo kulli lagaaga yeerayo si markaas waxa waaye wax u sheeg dadka waxaad taqaana u sheeg marka dadka agtooda xushmad ayaad ka leedahay dadka agtooda waxaad ka leedahay qiimo ayaad ka leedahay ilaahayna subxaanahu watacaala aqoontii haddaad say dartiisa aad u baratid ilahay agtiisana subxaana watacaala qiimo ayaad ka yeelanaysaa marka waxaan dhahnay aqoontu waxa weeye waa nolosha aqoontu waa nuur waa light aqoon sidoo kale waxaa waa xushmad iyo qiimo ayay ku yeelaysaa dadka agtiisa ayay kaaga yeelaysaa ilaahay subxaana watacaalana si haddii isaga waxa waa shuruudii loogu talagalay aad ka soo baxayd ilaahay subxaana watacaala xushmadaas iyo qiimahaas ayuu ku yeelaya sidoo kale qofka markuu aqoon leeyahay uu waxbartay oo ma garanaysaa waxbarashadiisa uu ku dadaalo albaabo fara badan ayaa u furmaya fursado ayaa u furmaya marka qofka markuu xirfad fiican uu ku shaqaysto uu leeyahay aqoon uu leeyahay meel walba looga baahan yahay waxaa arkaysaa maanta yacni adduunka la joogo waxaa lagu tilmaamaa waxaa la yidhaahdaa the new currency is the knowledge yacni lacagta cusub ee maanta adduunka kala shaqeynayso waa cilmigii haddaad taqaanid marka waxa waye taasaa lacag ku ah waxaad arkaysaa qof saacaddii ku shaqeynaya $12 $15 $20 iyo qof saacaddii ku shaqeynaya $100 $150 $200 ku shaqeynaya qof waxaa arkaysaa mashruucaas ku dhahayo waxa dadka ku jaajgareynaya $10,000 $15,000 ama waxaa laga yaabaa $15,000 inaad 5 bilood 6 bilood 7 bilood aad ku samaysid marka waxa waaye fursadahaas kala duwan qofka waxaa siin kara waxa weeye aqoonta iyo waxbarashada marka saan kuu soo sheegay waxa weeye aqoonta ama lacagta cusub ee maanta adduunka la kala sarifto waxa weeye aqoonta marka qofka haddii xirfad badan uu leeyahay qofka hadduu aqoon badan uu leeyahay qofka hadduu leeyahay ma garanaysaa يعني waxbarasho badan hadduu leeyahay fursadihiisa albaabadiisa ayaa u furmaya fursado badan ayuu helayaa marka taasna waa mid meesha ku jirta loo baahan yahay in dadku ay fahmaan barnaamijkan sababta aan u sameynayna ay ku jirto tan kale waxa waaye aqoontu waa awood waaye aqoontu waa power marka haddii aad awood leedahay yani waxa waaye haddii aad aqoon leedahay waxaad tahay qof awood leh qof waxa waaye dhihi kara ha iyo maya qof aan loo talin karin qof maskaxdiisa ku shaqeynaya ayaa tahay qof waxa waa fikiraya ayaa tahay qof wixii waxa waa cadaan iyo madow oo la muuqana ka soo saaraya yani waxa ku dhex jira markaas loo baahan yahay in la soo bandhigo miiska korkiisa la saaro ayaa tahay marka waxa waaye waad hadli kartaa xor baa u leedahay aragtidaada iyo sidii loogu talagalay maskaxda bini'aadanka in looga shaqaysiiyo ayaad uga shaqaysiinaysaa qofku uu qasbi karo aragtidiisa ama awoodiisa ama go'aamadiisa sababtoo qof aqoon leh ayaa tahay marka waxaan faa'iidooyinkan oo dhan waa faa'iidooyinkaas leeyahay barnaamijkan cusub dadku wax badan ayay ka faa'iidi doonaan haddii aad usoo bandhigtid waxaa insha allah rabaa inaan idiin sheego barnaamijku inuu noqon doono barnaamij xiise leh ma idinku dheeraan doono waxay noqon wax barnaamijyo yaryar oo laakiin cilmi baaris badan ay ku dhisan tahay insha allah ayaan rabaa inaan idiin soo bandhigo marka waad arkaysaa sida iskugu xiran yihiin labadan barnaamij waa laba barnaamij oo aan yani waxa waaye aan kala maarmin barnaamijkan waa barnaamijkii caafimaadka cuntada iyo caafimaadka iyo nafaqada sida iskugu xiran yihiin barnaamijkan waa barnaamijkii waxbarashada iyo aqoonta labadan qofkii ku dadaala noloshiisa wax badan sida aan soo sheegnay ayuu iskaga bedeli karaa ayuu iska arki karaa marka barnaamijkan xoolaha aqoon maal sanadkan ayaan bilaabi doonaa insha allah meesha la geeyo ayaan arki doonaa waxaan jecel cadaladan inaad la wadaagtaan dadka saaxiibadiin ah dadka walaalihiin ah dadka isaqaanaan inta casharkan cashar ku xiga iska arki doono waxaan kaga tegayaa sidaas salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu